dad badan waxay aad u runtii ay qaarkooda ay u baahan yihiin in xogta dhabta ay helaan baarlamaanka in yar oo wax dumin u taagan iyo qas ayaa dadka qaarkooda media marka dhageysato ay ka soo qaadayeen laakiin rabitaan sharci ku yimid rabitaan xaalad qiimaysay مسؤوليته iyo baarlamaanka hawshiisa iyo amaam Allahi wa amaam الناس waxay ugu dhaafteen inay ayaga qofna aan uga xishoonin ee baarlamaanka in loo abuurin xukuumad leh inuu xilka qaado inuusan ahayn dhammaan intii loo arko hawsheeda inay daliil soo gashay inuu baarlamaanka awoodda sharciga ay siinayso inuu qofna aanan ugu darnaanin qofna aan ugu roonaanin اللهم هدو مدحونا جمهورية الصومالية وياهي إني أقعدان جعلها إني كنوا تستل وما توجي الميديا كلها هبارية إني سنة إن كوحي البرسل بتاعك برلمان كمجورة تيسيرية شعب الصومالية وحنا رأينا إلهه شعب الصومالية ومجيئين أيام نشأ كفرنا إلى يوم كيسن وحنا دارني أمانة راسي أم قارن عرضي لي كل دي بورد دي
بني آدم بأسر إسكرت قادم جاهل ما يظلمي هذا أنا لما قبضت الله بقى واجب فينا قلت ودن كبدبادية قفناها أوجه بيسنا قرننا الصومالية لكن كل أمين مرنا ترادا هذه اللي معنا بدبادي تحسين استعجال هذا نعقل كتير ما لو أنا سمعنا قبض وهذا إنسان اللي معنا هل كان فضي فوق الصاحب لنا قاركود أي وسيلة مية فرد oo ay godka u galeen oo ay carruurtoodii u agoontoobay inay badbaadiyaan qaranka music ma aysan ciyaaraynin markii la dilaayay maaweelena kuma jirin marka ayagana dhaawacayay imisaan tabayna oo saaxiiba qaali ahaa oo hadlo iyo rag wiilal ama dumarsi ku jira oo marada timigaas ahaa oo inta aad taqaaniin ay ugu horeeyaan cabdaladeerowsa oo ay ku jiraan yuusuf bered oo ku jiray ma aragtay xildhibaanada wax la tirin kara ma sideetamay gaarayeen gabadhii fanaanada caanka ahayd saada cala iskagama dhimanin meel cidla waxay ku taagnaayeen baarlamaanka soomaaliyeed oo ku shaqaynaya jawi aanan qof matahay ku dhiirinayn inay ahaayeen waxa maanta hor isku dhiibkan ku soo gaaray baarlamaan ama xildhibaano u huray laftooda inay maanta neecawdan aad ku naaloonaysaan geeddeganaanshaha xamar aad ku haysataan iyo dowladnimada buuxsan ee meel weliba looga imaanayo waxaasoo dhan kuma imaanin iska dheh ragga hortiina fadhiya dhiiggooda ayuu ku yimi inaad taa u ictiraaftaan shacbiga soomaaliyeed oo kalsoonidiinana aanan ku lumin iyadoo dicaayado iyo wax rafiis ah in dadka qaarkii ee iyaga ay ku tilmaamaan baarlamaanka inuu yahay gudmiyaha qaranka xildhibaanadaadan eegiyo kuwa loo adeegsado عشان تاس وحد رالي عارفين عن لكن ما قلنا الرياضة كاركول إحنا نفترض كأدي سنة لكن هاي بوعتها بقينا شعب كينيو إذا قلت أجنّا هاي بتبادل فينا بتبادل قرنتا عملنا هاي خادمين تيجي أديك هاي عن هاي كويلك أديكنا الرجال اللي بدهم يمودي وحب هذا كسر وريجي waxaan leeyahay beeralayda waa garanaysaanoo cadaabaha ugu daran ay leeyihiin waxaa waaye shimbirta beeraha kunta iyo kuwa kale waaba dhugaada markii beeraha bislaada eber ka dhigta marka dadkii ayagoo abaar soo dhigtay oo haddana shimbir cunid haddana wixii ay abuurtaan raaxada ka qaatay ayaa niman beeraley nin shiikh kusoo samaysteen waxay yidhahdeen shiikhaan u baahannahay markaan shimbirta naga qabta خبر دوغان قال ايوه كدغا ايوه هيان تعملنا شيخاسي مارتي قران ما اخري نغا بداديو marka sheekhu waxaan rabnaa inaan kula badaalno yiraahdeen haye marka asaa waxay yiraahdeen annaga waa ololni arba'an abaar ka soo noqday waa ololni arba'an abaar ka soo noqday markaas yiraahdeen la arkina laga aqul abaysi يعني هذا داخل إلى بعضي أنا واحد توني وأمارنا أنا سوي شيء شبنا وحي أنا أقول سيد أقول ليس تعبانة من قبل شافوا هذا أنا ولا يكون يبلي حتى الحين لما يشوفنا وحي أنا أقول لنا كعنا هنا إلهي مرتوح علينا حتى إلهي توفيق لنا وفجيه والله توصل وقت هو رجع وشقي أمتيسا تدريسا أمتيسا كالسون dhibaato iyo wax aan anaga hadda aan munaasib u ahayn inaan halkaa ka nidhaahdo naga ilaaliya ayaan u baahannahay abuudeeyo adigane nebiyo intii la gaari leh allah maarne oo naar ay galday yaa yiri kusoo nebiyo intii la gaari leh adiga haddana maarne naar ay galday adigana waxaan ka aragnaa hoggaan toosan gudoomiyaha wuxuu codsaday si cad oo xalaal ah lagu kala baxo kala bax kitaabkaa dhigo sidaasaana baarlamaanka ajiibnay in mar haddii adiga dumashikii ogolaatay تنمي الوكالة بحال سوداويين وبالله التوفيق. تبدو بالركائب. وأنا أسمع محمد محمد صالح لأنها شرط له أعطاني كها قالوا وعن ذلك يا وحدة وأنا مسلمين أما فرد الآيات القرآن العام أما قاضي القضية كثيرة أو وحيابها سجونها تحاسبه. هذا فرقاً أيام مدح الرجلية أرمى أسرنا إنسي توسع وأبانا بالله يعلم يا بروفيسور الإمام بروفيسور عبد الله الشيخ إسماعيل
si uu halkaas naga yidhaahdo kelmada kaga haro. waxaan yidhi intaan xildhibaanka isugu aad bayanigii dhiirigelinaysaa maxaa yeele waxay muujinaysaa in tilaabadii aan bilownay inaan hor u qaadno inay dhamaystirkeeda soo dhoween aad u soo dhoween. waxaan rabnaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed ku sheegno miidiyaha ku sheegno intaan oo xildhibaano ah oo dastuur ku dhaartay magaca Ilaahay iyo Qur'aanka Kariimka ah ku dhaartay inaysan meel cidda iska soo abuursan. waxay sugayeen waxaa weeye wax xanuun iyo dhibaato ay xambaari waayeen oo ay u bogsan waayeen oo ay ka aamusi waayeen. waddada keliya ugu furan waxay noqotay markii dhibkii iyo xanuunkii iyo maaragtay daawadii ay gadaal u raaceen inay kulli ku aruurtay saaxiibkay gudoomiye Jawaari agtiisa ku aruurtay. waxaa waajib noqotay marka inaan saaxiibnimada la eegin maxaa la yidhahdaa profilnimada aan la eegin ee la tixgeliyo mas-uuliyadda taas ayaa waajib noqotay. waa tan inaan maanta halkan ku fadhino shacbigana waxaan u sheegaynaa waa maqlahayaa in Jawaari sidii madaxweyne isagoo ah oo kale uu toos shacbiga uga hadlayo. madaxweyne ma aha dadka madaxweyne ayaa ka jira magaciisana waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shacabkay wuxuu u hadlaa sidii haddii la burayay wadanihiioo dhanba isaga ay ku ururtay. waxaan leeyahay haddaad adigu wadani tahay waa lagaa sii wadanasan yahay. intaa oo dalka u kacday ayaa kaa wadaniman badan. shacbiga waxaan leenahay waxaad idinka noo ignoteen oo aada noo doorateen oo furaasta aad noogu fadhiisiseen oo waajibaadkan culeyska badan noo saarteen. risaaladaas ayaan gudanahaynaa. aaminka ku qabaana. muasasadii sharciga dejinaysay ayaa fadhiid laga dhigay, ayaa la hooyaamiyey. waxaad ka warqabtaan shacbigu in 4 bilood oo la shaqeyn lahaa 1 bil ama nus bil laga shaqeeyo. baarlamaankana waa loo diiday inuu si dhammaystiran u shaqeeyo. baarlamaankan waa loo diiday in arrimaha siyaasadeed uu ka doodo. waa loo diiday arrimaha amniga inuu ka doodo. waa loo diiday horumarka bulshada inuu ka doodo. waa loo diiday markii la arkay ayaani warwadadeen oo bannaan. waa midda maanta furayno oon dadaalkeediina wadno. anigaan halkaan hadda idin hortaagan ayaa kalfadhigii hore uusan xirmin iri mudana guddoomiye ku iri war 15 casho nasiib oo arrimaha
qaranka ka jira dhinaca walba ka jira xagga amniga xagga majlisi xagga bulshada horumarkeeda xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha ka jira aan ka doodno oo aan ka soo saarno waxa af carabiga lagu yidhaahdo tawsiyaad waxa af ingiriisiga lagu yidhaahdo recommendations waxa af soomaaliga aan ku yidhaahdo tusmo iyo tusaalo aan ka soo saarno nakata oo ku kari waayo marka meesha maxaa u fadhinaa marka ma rubac kan fadhi inaan shaqayno iyo arrimaha qarankoo dhan baa inaan indhaha maartay maxalada ya nalaga maartay xero darteeda miyaan u fadhina ma dhici karto marka waxaa halkaas ka soo baxaysa loo baahan yahay hoggaan cusub oo la wareegi karaa howlgelinta baarlamaanka kan sharafta leh hoggaan cusub oo mas-uuliyiintiisa qaranka qaadan kara hoggaan cusub oo aan media moodin inuu yahay guddoomiye waxaa guddoomiye loo yahay waa shacab waxaa guddoomiye loo yahay baarlamaanka marka kaasaan insha allahu tacaala baadiboobeynaa maanta iyo wixii ka dambeeya ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo cidna duulaan kumani cidna ma aflagaadeynayno cidna meel cidla kama maagayno marka haddii ay saacaddii soo qeyshay walaalkay wax walba saacad bay leeyihiin kursiga lagu fadhiyo saacad buu leeyahay cumriga saacad buu leeyahay hantiilanimada xataa saacad baad leedahay hantii qofku uu noqonayo marka waktigaagii hadduu yimid si tartiib ah oo xushmad leh isaga halool meesha saaxiibadaadoo ku xurmeynaya inaad meesha ka tagto ayaa faa'iidadu ku jirtaa wax uun adoo la haray inaad meesha ka tagto ayay sharafta ku jirtaa marka waxaan idinka rabaa xildhibaanaha daadkii waktigii wax la saxi lahaa baa yimid idinkoo isku duuban oo aan kala heeb ahayn oo isku dad ah oo isku meel isku dhinac isku jeeda inaad waajibkan saacaddiisii baa soo gashay aada gudataan idinkoo aada iyo aada isugu niyasaan intaas markaan ka baxo aniga waa iska suugaan jecla suugaanta carbeedna haddana si gaaraan u jecla soomaalida waan jeclahay waxaan ka sii jeclahay kan carbeed suugaanta carbeedna sheekh waa inaad lahaataa ma shuuqi baa ma mutanabi baa ma albaradoni miya abulqasim shaabi miya waa inaad maartay nazar qabbaani miya waa inaad qofka yeelataa aniga ninka aan ka leeyahay waa nin wadaad ah oo hogaamiye ah oo shaaficinimada maanta aan sheeganayno aabbeed ah waxaa waaye shaafici madhabka aan nahay daraadadidiisa iyo soo bandhigidiisa muxuu yidhi gabayaa weyna uu ahay wuxuu yidhi annaga hadda fadhiid baa noqonaa nimo isagana muxuu yidhi إني رأيت وقوف الماء يفسده وعن الكبياء زي ما الفلسطين إلى الفساد يعني إنسان طاب به ليس عدان والمناسنان
وإن لم يجري لم يضرب حديث الصحنة مغرى سنة بيا فريستين وين السعودان فاسد قلنا وعقلوا يجري الشمس لو وقفت في الفلك دائما قرأت الظهر كهدي هتلسكت ولقي في صندقاقين لما لها الناس ضرك أياك داخلها من عدم ومن قرب ضرك عدم كأن إذا عرفت أمر إلا لله قرأت هذه ما تسكتك ما هذا حرام ماشي تسكتك ما بركة وحكلوا إلى بدء الربو وإليك إلى الفلسان يكون سكوبا وقبل يسوع سيئا مين ما يرسل إيطاليا مع الإجابة إلى الفلسان فرقة بيت الصوص وامحي والأسد له والأسد له الأفلام الغابقة متفسرسي لباحيادو ليس قيمها كتجين وحمصه وبارصدين marka gurigiina la iska fadhigaan wax shaqaynaya ma jiro gurigiina la iska fadhigaan oo WhatsApp ku mashquulshaan wax shaqaynaya ma jiro وإن تقاربان وإن صعدان وإن جوابسان